والحلين marka yaa la bumbuurinin laakiin markii miiska la fariisto ani miiska waxa uu soo fariisanaya anigoo nin Soomaali ah oo kamid ah dawladda madaxweyne Uhuru Kenyatta oo baarlamaanka Kenya uu hogaamiye u ah marka oo waliba ninkii saddexaad xagga siyaasiga marka ani waxaan noqonayaa diyaar baan u yahay Soomaalida iga raali ahaato ma ogolaanayo hal cidi ama hal yar oo dhul ay leedahay wadanka Kenya ama bad ahaado ama dhulka ahaado inay wadan kale ama Soomaaliya ama Ethiopia ama Djibouti xuduud ama South Sudan inay qaadato sidaasna waa sidoo sameyn lahaa ninka Mustafa ka madaxweynaha kalinka shanaad markuu mid soo fariisto wuxuu soo fariisanaa soo nin Soomaali ah laakiin